Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal. Maanta waxaynu ka hadli doonaa hadduu alla idmo oo videogan aan ku baran doonaa sida loo soo degsado Microsoft Office LTC Professional Plus 2024 sida loo soo degsado isagoo weliba free ah ayaan ku baran doonaa videogan hadduu alla idmo. Marka aan sii guda galno si aan fiirin horta inuu ku jiro laptopkeena aan fiirino inuu ku jiro computerkeena waxa loo yaqaano Office iyo in kale. Sidaad meeshan kaaga muuqato dabcan dukumiintiyo ayaa meeshan ku jiro. dukumiintiyada meeshan ku jiro dabcan ma shaqaynayaan sababtoo ah wixii loogu talagalay hadday Word yihiin hadday yihiin Excel dabcan kulli ma shaqaynayaan ama si kale aan hubino haddii aan dhahno right click new markaan dhahno sidaa ujeedid waxaa waaye wax Word ah ama Excel ama PowerPoint ama wax kale access soo baxaya ma jiro sidaa darteed wax ah Office waxa la yiraahdo kuma jiraan hadda intaan ku qornana Office Excel oo kale haddaan qorno ma soo baxaayo Excel oo kale haddaan qorno soo baxaysa meeshan kaaga muuqata oo ujeedid soo bixi doon waayahay haddaba marka sideen u soo degsanaa marka ugu horeysa browserkaaga imaanaysa Microsoft Edge ama Chromekaaga imow kadib dabcan imow marka koowaad Microsoftkaaga imow Edge ama browser inuu ha noqdo ama Safari noqdo mid kale ay browser kadib waxaa soo galaysaa linkigan description-ka hoose ayaan ku dhigi doonaa marka waa Office customization tool marka ugu horeysa waa inaad soo degsataa marka intaa maraysa intaa ku keeni doonaa linkiga kood marka ku dhuftid linkiga dabcan description-ka ayuu yaalaa linka description-ka soo dhufo hadduu alla idmo meesha markaa ku dhuftid marka 32 bit miya computerkaaga mise 64 bit waa inaad isticmaashaa marka computerkaaga noocuu yahay computerraadka hadda ugu dambeeyey oo firshanada dambe waxaa waaye 64 bit waa dabcan marka midka uu yahay adaa garanaya ku dhufo 64 bit waa ku dhuftay kadib Office-ka aan rabna ayaan dooranaynaa waxaan sameynaynaa kuwa ujeedid midka aan rabna wuxuu noqonayaa waa Microsoft LTC Professional Plus 2024 weliba volume license asoo kaas ayaan dooranaynaa markaad dooratid kadib wax kala sameynin kaliya luqadda la bedelo sameynin inta waxa sameynay meelaha waxa ka fiirinaysaa kaliya midka aad rabtid waxa aad u baahnayn waa iska tiri kartaa tusaale OneDrive kan oo kale uma baahni OneNote kan uma baahni sidoo kale Excel waa u baahnahay Excel waa u baahnahay Word waa u baahnahay PowerPoint waa u baahnahay intaan kale marka kadib waxaan dooranayaa language-ka luqaddan dooranayaa language markaan ku dhufto select primary language ayaan dooranayaa waxaan ku dhufan doonaa kadib English United States ama United Kingdom mid aad rabtid ku dhufo kadib hoos u sii soco waxaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose oo ay ku qoran tahay export qaybta ay ku qoran tahay import waa tan export ku dhufo marka export aad ku dhufatid waxaa ku soo bixi doona dialog box-kan qaybtan hoose ka dooro qaybtan dhexe oo ah Office Open XML format iska dooro taas ayaan dooranay kadib waxaa leedahay okay iska leh kadib meeshan waxaa waaye click the accept the terms in the license agreement ku dhufo kadib waxaa leedahay mar kale haddana export ayaad leedahay marka si toos ah marka waxaa soo degi doono waxaa ku dhufata meeshan configuration XML keep ku dhufo kadib si toos ah configuration XML-keena wuu noo soo degay kadib waxaan raadin doonaa kadib Office development-ka ayaan gali doonaa kaas customization ayuu ahaa Office-ka ayaan galaynaa Office development aan tagno linkiga waa qaybta labaad ee description-ka ayaan ku dhigay isagana linkiga meeshaas ka soo gal marka linkiga aad ku soo dhufatid meeshan ayuu ku keeni doonaa dabcan kadib waxaad soo degsan doontaa Office development tool-kan soo degso download garay Office development tool isagana wuu socdaa sidaa ujeedid wuu soo degi doonaa dabcan waayahay oo inoo degay dabcan aan ka baxno marka waxaan tagaynaa Explorer-keena aan tagno waayahay kadib wuxuu gali doonaa meeshan loo yaqaano downloads-ka ayuu gali doonaa wax la soo dejiyey waa kana configuration-ka waa inoo soo degay sidoo kale Office development tool-na wuu inoo soo degay waxaan samaysanaynaa marka folder cusub aan sameyno folder cusub ayaan sameynaynaa aan ku qorayno Office waxaan qoraynaa Office 2024 ama 2020 mid kaarti waa ka dhigi kartaa 2024 aan iska dhahno kadib waxaan dhex dhigi doonaa soo jiido configuration-kan inta dhex geli kana sidoo kale drag soo jiid inta geli ama soo copy garay kadib baasta ku dheh waayahay folder-kan furi doonaa kadib waxaan dooran doonaa Office development tool ayaan ku dhufan doonaa waxaa leedahay click ayaad ku siinaysaa 2 jeer
kadib meeshaan ayaan klik garayn doonaa, klik ayaan leeyahay accept the Microsoft software license terms, kadib waxaan leenahay continue. kadib folderka aan rabo ayaan gelinaa, wuxuu igu degsan yahay PC-ga gudihiisa waaye. kadib waxaan tagi doonaa downloadska, kadib waxaan tagi doonaa midkaan soo abuurtay oo ah Office 2024 ayaan tagi doonaa. waa kana sida meesha kaaga muuqdo Office 2024 kaas ayaan ku dhufan doonaa. kadib waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay, dabcan waa lagu shubay. haddaba marka midkaan configuration Office 365 uma baahni, kaas iska tuur. kadib waxaa dhihi doonaa meesha, waxaan tagi doonaa staging, waxaa ku qortaa CD li ku qora ama CDM. horta intaan wax ku qorayn waxaa soo koobiyeysanaya, soo koobiyeyso, waxaa leedahay control C ayaan leeyahay, waa soo koobiyeystay. kadib waxaa leedahay CDM ayaad qoraysaa. CDM markaa qortay kadib waxaa kusoo bixi doona kan command prompt aa kusoo bixi doona, waxaa ku dhufataa run as administrator. kadib yes aan leeyahay, kadib waxaan qori doonaa CD ayaan qori doonaa, space ayaan leeyahay, kadib control V ayaan leeyahay, kadib enter iska dhe. waxaa qori doontaa kadib marka set up ayaan leedahay .exe ayaan leedahay, kadib waxaa leedahay /configure space aa leedahay, configuration aa qoraysa, dabcan configuration .xml ayaan leeyahay, kadib waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay. waa kaasa sidaa ujeedid Microsoft ayaa la diyaarinaya. waayahay marka saa ujeedid meeshan kaaga muuqato, fiirso, waxaa lahay please stay online while Microsoft 365 and Office download. intuu kuu soo degayo Microsoft 365 waa inaa online ahaataa. haddii online madaad iska xirid waxaa waaye kuma shaqayn doono, mana kuu soo degi doono. marka waa inaad online ahaataa. sida marka meeshan kaaga muuqato wuu soo degi doonaa, cabaar waqti ay qaadan doontaa, iska sug insha Allah. waayahay ugu dambeyn sida meesha kaaga muuqato, dabcan wuu inoo soo dega, waa ujeedaa all check close aan dhahno, marka aan fiirina marka daba waa kahay waa inoo shaqaynayaan sidaa ujeedid. wax kasta oo fayl sida way inoo shaqaynayaan. aan baroweyna marka mid cusub waxaan leenahay new ayaan leenahay, waa kana fiiriya waa ku jiraan, database-kii ku jiro, access-kii waa ku jiro, waalidkii ku jiro, excel-kii ku jiro. waalidka aan baroweyna waa kana nadiif waaye, una shaqaynaya. sidaas fudud ayaad kusoo degsan kartaa. wassalaamu calaykum.